maxaad ka taqaanaa noolaha leh labada gacmood iyo shanta farood kaasoo ay isku dhow yihiin bini'aadamka marka laga hadlayo dhanka ablaablaynta xayawaanka? daanyeerku waxuu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda gaar ahaanna bahweynta naasleyda. asal ahaan daanyeerku waxuu ka soo jeedaa qaaradda afrika gaar ahaanna dalka masar. bahda cilmiga saynisku waxa u yaqaanaan simiformas catarain. daanyeerku waxuu ka mid yahay xayawaanada uu rabbi qur-aanka ku sheegay. afkeenna hooyo guud ahaan waxaa loo yaqaanaa daanyeer, midka lab soomaalidu waxay u taqaanaa dooxaar amase haaruun. marka uu gaboobana coof leh, halka tadhadig loo yaqaano saayo ama heliyo. adduunka waxaa ku nool 260 jaad oo daanyeera. daanyeerka waxaa loo qaybiyaa 2 nooc guud ahaan. daanyeer qadiimiya kaasoo leh san yar waxaa laga helaa qaaradaha afrika iyo aasiya. daanyeer cusub kaasoo leh san weyn waxaa laga helaa koonfurta iyo bartamaha ameerika. cimriga daanyeerku waxauu gaadhaa 10 ilaa 45 sanno. nooca ugu yar daanyeerada adduunka ku nool waxaa loo yaqaanaa bigmi marmoset waxaa laga helaa koonfurta ameerika, halka daanyeerka ugu weyn lagu magacaabo mandrill kaasoo laga helo waqooyiga iyo koonfurta afrika. sidka daanyeerku waxauu gaadhaa 134 ilaa 237 maalmood. waxauu ka mid yahay xayawaanada la dhiiga diran. waxa uu leeyahay 42 hidaside. heerkulka jidhkiisu waxa uu gaadhaa 37 ilaa 39 digrii. culayskiisuna 36 ilaa 460 kiilo. waxa uu leeyahay 32 ilkood. sidoo kale waxauu ka mid yahay xayawaanada halcalowleyda ah, kuwaasoo quuta midhaha dhirta, caleemaha, cayayaanka, shimbiraha yaryar, mulacyada iyo caarooyinka. waxa uu wax quutaa maalintii. ugu dambayntii waxaa jira xanuuno badan oo ku dhaca daanyeerka, kuwaasi oo u gudbin karo dadka. waxaa ka mid ah xanuunka aidiska iyo sidoo kale fayraska ebola. daanyeerku waxuu ka mid yahay xayawaanada hilibkooda laga cuno dalal badan oo caalamka ka mida dhaqan ahaan, kuwaasi oo ku yaala afrika, aasiya, ameerika iyo qaybo ka mida yurub. noolahani waxuu ka mid yahay xayawaanada bulshada ula qabsada sida fudud. waxauu leeyahay garaad badan. waxaa jira maalin caalamiya oo adduunka laga xuso daanyeerka, taasoo ku beegan 14 bisha 12 ee sanad kasta.